waxaa maraya meesha Joe Floyd lagu dilay meeshan waxay ahayd meel khatar ah oo shidan bay ahayd gas station kala xiran baa ku yaalay meesha lagu dilay waa kan meeshan waxay u ekaatay meel desert oo laga guuray gas station ki saasay u ekaatay meesha dhan waa meel laga guuray u ekaatay waxay u ekaatay waxaan oo dhan baa lagu sameeyay waxaan dhan lagu sameeyay gas station kan waxa laga sameyn jiray $1 billion laga sameyn jiray dhammaan sanadka hadda gas station ki noocaas u ekaaday markaan meesha Joe Floyd meesha adduunka maarag dagaal markuu ka dhaco wax kasta way jajabaan iyo markay gasho dadka dhibaato markay ku dhacdo wax kasta way kala burburaan markan dagaalada iyo uqdada iyo caayda iyo wax kasta waa sun waay wax kasta burburiyaan gas station ka ninkii lahaa qasaaro dhulka jilbuhu gooste hal maalin buu lifekiisa iyo businesskiisa hal maalin buu isbedelay oo dhulka lagu daray one day ilaahay baa maaragtay markuu wax ku qoray waasaa ninkaas soo galay wuxuu ka gadanayay wuxuu yiri wax buu xaday booliska lagu wacay intii yareed sheekadii baa lifekiisa iyo businesskiisa hal maalin dhulka la goysay hadduu ninka iska dhaafi lahaa uu dhihi lahaa iska bax uu boolisku yeeri leen dhibaatadan iyo waxan iyo businesskiisa dhan ku dhaceen always nabadgelyada wax ka fiican ma jirto khayr baan ii rajaynayaa nabadgelyada wax badan bay tartaa naceebka badan iyo xumaanta badan iyo dadka la caayo dadka oo la aflagaadeeyo waxyaalo badan bay ka dhimaysaa lifekaada markan iska ilaaliya afkiina baan dilayaa baana nixirayaa afkaada ha ku abuuranin xumaan badan afkaada ha ku abuuranin cadow badan afkaada ha ku abuuranin wax oo naftaada dangerous ilmahaadii adigaba aan la noolaan waysin markan bini'aadanka waa shaydaan markan iska ilaaliya ninkaas gas station ka kuwan saqaata qaar baan ii rajaynayaa adigu kuma socotee dhiigaas ku kareedo dhiig ku karan barafka banaanka istaag qabowga